بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال kulanti wanaagsan meel kasoo joogtaan halkan waa Cali Media 24 anigoo Cali Sheekh Maxamed oo aan idin waramaya daawadayaal barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa xaaladda bariga dhexe wadahadallada xabad joojinta ee xilligan soconaya iyo dalabka Israa'iil ee soo bandhigtay oo la ogaaday wadahadalka hadda soconaya oo rajo wanaagsan laga muujinayo inuu noqon doono midkii xal waara ay ku gaari lahaayeen Falastiin iyo Israa'iil bariga dhexe oo la codsaday inuu noqdo gobol dagaalada ka caagan sidoo kale qorshaha laba dowladood oo darisa Israa'iil iyo Falastiin oo meel wanaagsan maraya iyo midowga Yurub oo ku dhawaaqeen May dhamaadkeeda noqon doonta markay aqoonsan doonaan dowladda Falastiin ay leedahay dhexdhexaadin laga dhex bilaabay Israa'iil iyo Hezbollah ayaa sidoo kale barnaamijkeena daawadayaal qayb ka noqon doonta ee ku soo dhawaada mar kale Cali Media 24 haddaad nagu cusubto YouTube-ka subscribe noo saar haddaad hore noola joogtana fiidiyowga noo share garee aan ku bilownaa waxaa soconaya wadahadallo rajo wanaagsan laga qabo inay noqon doonaan kuwa xal waara ay ku gaari doonaan Falastiiniyiinta Israa'iil wadahadallada oo ka soconaya magaalooyinka Dooxa iyo si lamid ah Qaahira ee Masar iyo Qatar ayaa rajo wanaagsan laga muujinaya waxaana la sheegay waddanka Masar inay gaareen saraakiil ka socota ururka Xamaas sidoo kale wadamada dhexdhexaadiyaasha Israa'iil ayaa halkaas hore ugu sugnaa dowladda Ingiriiska oo ka hadashay soo jeedintii ugu dambeysay Israa'iil ee soo bandhigtay ayaa sheegtay in soo jeedintaasi rajo wanaagsan ka qabaan Xamaas ay aqbali doonto waxaana wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska David Cameron oo hadlay uu sheegay in soo jeedinta ugu dambeysay ee dhanka Israa'iil ka timid ay sheegayso 40 maalmood oo xabad joojina sidoo kale lagu sii daynayo lahaystayaal Israa'iil u dhashay iyo kumanaan Falastiiniyiin ah sida uu hadalka u dhigay inkastoo cadad rasmi ah aanu sheegin haddana waxa uu sheegay in kumanaan Falastiiniyiin ah iyo maxaabiis Israa'iil qaybo ka mid ah la isku dhaafsan doono David Cameron ma sheegin dalabkii Xamaas ee la xiriiray in xabad joojin rasmi ah laga gaaro xaaladda magaalada Gaza inay miiska saaran tahay hase ahaatee waxa uu sheegay in rajo wanaagsan ka qabo inay aqbali doonaan Xamaas soo jeedinta hadda ugu dambeysay sidoo kale Mareykanka wadamo uu ka mid yahay ayaa dhankooda ka hadlay sheegayna inay rajo wanaagsan ka qabaan inuu noqon doono xalkii ugu dambeeyay ee laga gaari karo magaalada Gaza oo noqonaya heshiiskan mid xal waara ay ku heli karaan Falastiin iyo Israa'iil laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin oo la iska dhinac dhiso ayaa si la mid ah qorsheedu u soconayay waxaana miiska saaran sidii lagu dhisi lahaa dowladda Falastiin iyo si la mid Israa'iil oo ka garab dhisan Joseph Borrell madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub oo ka hadlay kulanka dhaqaalaha ee caalamka ee ka soconaya magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga ayaa sheegay in May dhamaadkeeda ay rajeynayaan wadamada ku jira ururka midowga Yurub May dhamaadkeeda markay tahay aqoonsan doonaan dowlad rasmi ah oo Falastiin ay leedahay inkastoo shuruudo badan ay reer galbeedka ku xirayaan qaabka lagu heli karo dowlad Falastiin ay leedahay saacadii xilligan waxay muujinaysaa dagaalka soconaya oo qaati ay ka taagan yihiin reer galbeedka iyo Israa'iilba in dantu ay ku qasbayso in dowlad Falastiin la dhiso saasna ay noqotin Falastiin madaxa loogu baneeyo jawaabta Xamaas oo xilligan la sugayo ayaana warbaahintu waxay sheegayaan in saraakiil Xamaas ka tirsan laga soo xigtay 24 saac soo socota Xamaas jawaabteeda rasmiga ay dhiibi doonto inkastoo caalamka guud ahaan ay aad u rajeynayaan Xamaas ay soo jeedintan hadda ugu dambeysay heshiiskan hadda la wado ay aqbali doonaan haddii Xamaas ay aqbalaan wuxuu noqon doonaa heshiis dhaqan gala oo sidaasi loo isugu dhaafsado maxaabiista ee Xamaas hayaan iyo kuwa Israa'iil ay gacanta ku hayaan qaybo ka mid ah dhanka kale Mareykanka ayaa la sheegay wadahadallo ka dhex bilaabayo Hezbollah iyo Israa'iil Hezbollah ayaa ku dhawaaqday dhowr mar in haddii heshiis laga gaaro dirirta magaalada Gaza ay xabadda joojin doonto xabadda ay wadaan ay ku xiran tahay magaalada Gaza waxa laga gaaro Falastiin oo nabad hesha iyo si lamid ah xabadda laga joojiyo magaalada Gaza Hezbollah waxay sheegtay in ku xiran tahay joojinta dagaalka dhankeeda asaata Israa'iil ayaa warbaahintu waxay ka soo xiganayaan inay sheegeen inay samarna dagaalka joojin doonin duqeymahan ay ku wadi doonaan Hezbollah inta ciidamada Hezbollah ay ka baxayaan deegaanada xuduudaha ay hadda ay soo galeen deegaano badan oo xuduudka Israa'iil iyo Lubnaan ku teedsan ayaa ciidanka Hezbollah ay hadda isku fidiyeen xoog badan ay ku leeyihiin Israa'iil waxay sheegeen in Hezbollah halkaas ay ku sugan tahay inay samarna ayaga dhankooda xabad joojin doonin laakiin Mareykanka ayaa hadda bilaabay sidii uu ku dhexdhexaadin lahaa labada dhinac si xal waara looga helo dhanka Lubnaan iyo si la mid ah Israa'iil Mareykanka waxaa ka go'an sida Israa'iil ay nabad ku heli lahayd inuu markasta uu ka shaqeeyo wadahadalka uu Mareykanka wadeen ka yahay ee Hezbollah iyo si la mid Israa'iil lagu dhexdhexaadinayana wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyay ee Mareykanku garwadeen ka noqdo oo Israa'iil iyo Hezbollah lagu dhexdhexaadiyo waxaana Hezbollah Mareykanku u aqoonsan yihiin urur argagixiso daawadayaal intaas ayaan qodobkeena ku soo afmeerayna